السلام عليكم أصحاب مeel kasta joogtiin soo dhawaada maanta waxaa soo binaynaa waxyaalo hore wiig hore aan ka ballan qaaday inaan tuso oo maxay ahayd caafimaad leh oo hooyooyinka u fiican marka insha Allah so you guys can see waxaana ka hadlaynaa insha Allah iyo maanta maxaa meeshan yaalo waa sheekada insha Allah marka enjoy the video السلام عليكم marka asxaabta saa u jeedin maanta hore waxaan ilahay waxyaalo badan oo dukaanka maxaa dhahay website-ka forever oo leeyahay ayaan tusaya marka maanta saa u jeedin aloe vera ay ka shidantahay wiigan oo dhan sheekadana waxa waa aloe vera ayaan ma arkana ma sha Allah inooga shidantahay hadii ilaahay idmo marka waxaan tusaya marka biyahan oo aloe verada waxad kala noo dambeeya waxyaalo yar oo ku soo darna way ku jiraan oo advice ما شاء الله فيديو أو unique هوية ما شاء الله قبل ده داوتين وحياة عافمات أو health normal شنقريسة ده هذا day last video جدي ما شاء الله unique هوية ده داون إن شاء الله صوت داوده مركا إن شاء الله مركا حن إتو سايمان تي بيهان و choose basically أو cranberry apple flavor لقصو بيه أو also وجد سيدلوس ألفيرا gel واينو إريد قشن مكو مجرعة واينو إريد برسدين okay marka saan u leeyihiin biyaha waxyaalo badan ay ku imaadaan ma sha Allah waa natural horta tan ugu horeyso which is natural juice waaye kimikii waxba kuma jiraan also waxyaalaha sidaan ii sheegay ka shakineyseen oo xalaal waaye ma sha Allah 91% oo meeshaan ahna waxa laga suubiyaa aloe vera ma sha Allah okay marka company-gan mastiliisa ula socotiinba wixiisa dhanba kana laga suubiyaa tiitiin ma la horta af Soomaali something like that I think it's yeah so صح dadka Soomaaliga ma sha Allah qatarta ku okay marka kana laga suubiyo apple-ka iyo grapes-kana waa lagu daray tufaax iyo grape okay marka insha Allah wuxuu u fiican yahay marka hadaan ii sheego biyaha waxay u fiican yihiin aan lahay jirkaygu u dhaqayaan horta caloosha ma sha Allah maadaama hooyooyin aan nahay oo ma arkino oo iska yar yahay vitamin-tigeena iyo also helps you with the vitamin you leeyahay let me see waxyaalaha kale uu leeyahay sokor badan kuma jirto there's no sugar fat kuma jiro maxay ahayd malahan sodium oo 55 mg uu leeyahay trans fat gramka waa 0 alxamdulillah marka hadii caata aad tahay iyo waxa aad tahay ma sha Allah ku caawina marka kan waxa aniga ku soo jooga hal koob ayaa laba koob maalintii is dhaha laga cabo just koob ku shiban aan marka shaqada aada intaan baraf yaraan ku shubtaa barafaan ku shuban halkaan yaxyab ayaan ku shubana marka daa aragtiin aan tusa just like choose horta iska kilmayo wax kasta marka juice-ka la cabayo because wixii laga shiido hoosta u degaan badana to shake first shake marka waa sheegareynaysaa sida isku walaaqmaan ka bacdi intaan ku shubta aan alxamdulillah ma jeedina gaad waa juice camal ma sha Allah just like juice marka juice-kaasaan ka dhigtaa half that day to be honest aan laba jeer ma cabi because xoogaa way culus yihiin amaan culus waxaan ka wada aniga reer macaan ahay Soomaalidan u badanahay laakiinse aad uma cabo waan dheega tadankaas cabo alxamdulillah igu filan ani bal taste it again marka barafka taa ku dad xoogaa dhanaan waaye waxaa ka dhadhama also aloe vera ka dhadhamayso geedkii laga suubiyo culeyskiisa ku jiro little bit marka it's very yummy it's not that bad biyo culus oo ma ahan oo qaraar ama wax ma flavorkiisa is good barafka marka ku darsatidna xoogaa mix up with that marka insha Allah soo fiiri marka waxaan ii sheegayay sida hal mar in kugu celiyo marka waxa islaamaha mostly u fiican yahay hadii caloolka ma arkino calool xanuunka calool xanuun ma dhihin soo karaal ahaada waa xalaal tifakayda horto gluten free wire rich in vitamin C ma sha Allah also right there natural flavor no added chemical anything oo qashin lagu daro waxba ma lahan marka waa natural oo aloe vera marka islaamaha marka cabtid calooshaada ma sha Allah hoos madicirada iyo meelahaas adii waxyaalo badan si dhaqdhaqaadaha la dhahay hadii like ma arkino u fiican tahay like marka caadada qabtid or whatever everything halbis way clean grain way ku dhaqaysaa inside-ka dhaqaysaa kaliin ما شاء الله husband or wife whatever clean grain somewhere wallahi ما شاء الله waa marka adoo juice kaadina helwsid oo cabaysid ما شاء الله hadana benefit ka helwsid vitamin C gaada ay ku leeyihiin jirkaada iyo calooshii wixii wasaqdeen ay ka dhaqayso maadaama geedkan tintinka uu daawo yahay marka it's good
advice ani inaan la jeclo marka ani kana haystaa soo gatay iyo kan marka laba xabe so adeegi 2 times hadaa cabi kartid is okay haddii laba jeer cabi kartidna okay also adiga sa juice-ka reero juice u tahay ku xiran some people biyo cad iska jecel yihiin some people waxay iska jecel yihiin juice-ka so every time hadaa marka qadeyna hataa juice-ka dhigatid baraf ku darsatid it's fine masha Allah it's very good and healthy marka soo baraaweeya let me know what you guys think sida markii hore kugu sheego kala linkiga I can share the link down below qofka u baahan also far nobody ask it linkiga waxyaalo raba also website-kooda geli kartaa hadaa rabtid forever adahoosa and then mostly ayinka dadku waxay u suubiyaan inuu qofku oo ku soo sponsor gareeyo camal oo ku soo diray ay u shaqeeya marka qof gabadha oo alaabtan gadooso linkigeedana ii soo diraya marka and then ayada markaas hadaa ayada ka dalbatid oo kale give you discount oo dukaanka intii lagu gaday instead of adiga online ka aad gado lahayd marka this is aloe berry nectar okay marka aloe berry waa waxooda dhan everything ayanka ay leeyihiin aloe berry laga subiyaa kii wajiga la marsanaysan ii sheegay kii la cabaayay environment-igi islaamuhu leeyahay kii ilmuhu leeyahay marka this masha Allah company-gan xalaal wuxuu ku fiican yahay xalaal no gelatin ilmaha environment-igooda kale ma lahan waxyaalo badan ku fiican marka check it out guys and just waxa aan ka helay aniga ii sheegay waa soo baraaweeyay before I share with you guys laba week ayaa soo baraaweeyay and see if I like it masha Allah marka if you guys like it let me know down below and comment hadaa hore isticmaasho kale oo taqaanid iyo waxyaalaha kale extra-da oo ku fiican yahay ka dareento adiga caafimaad ahaantaada okay marka biyaheena halkaas uga baxnay marka saan ii sheegay unique hooyo gabadhaas masha Allah my friend waa channelkeeda check it out masha Allah dhiirigelin badan ay leedahay marka maandada waxay ka hadlaysaa videogeeda how to be healthy haddii hooyo aad tahay inaa iska cuntid ma arkino like veggies cunan because Soomaali hadaan anaga veggies uma badnin marka maanta waxaan ay tusa example aniga aan cuno wax yar aan cuno oo cagaar cagaarkan waa iska kaan cagaar markii veggies loo fiiriyo veggies ahaan oo galooya waa barbarooni as you guys can see barbarooni green barbarooni cagaar okay iyo kan oo dhaaf Soomaali colorkan I have no idea okay here red no gaduud waa kan right gaduud is kind of orange though orange gaduud la kala barbarooni gaduudka iyo kan oo lemon colorkiis marka aniga sidaan ii sheegay Soomaalida aan wadanahay we don't eat veggies that much marka somehow hadda masha Allah wallahi maxaan dhahay bara waxyaalaha waxa horta maxaa barasho hortada ay nixin anything it doesn't matter in aqbarno is only wax kasta barasho waaye marka hadii aad baratid in greenki aad cuntid oo ku fiican yahay oo cabar aad wadid ma arkino next time wuxuu noqonaa normal ku noqon marka ana hadda kan oo kale my favorite is this one green one ka iska jecelahay so wax kasta oo dipping hadda waxaan isoo suubiyay bean butter dipping bean butterka lowski oo la shiiday aan ku darsadaa masha Allah it's very yummy also wadaarto ku darsan kartaa malab organic soo qaadana intan waa ku dib gareysan kartaa sida flavorkii adiga masha Allah caafimaad ahaantina ay ku taa oo healthy ku yahay also waxyaalaha aad jeceshahana aan ku daarsanaysid ma arkino masha Allah it's very nice marka kaas aad yeesan isoo also maxay kala ka hadashay baayo wuxuu ahay broccoli broccoli inuu asagana masha Allah qiimo badan yahay oo health iyo asagana saano kale asaga ceerin ama wax yara biyo bufka siina oo kulul wax ku darsan kartaa any dipping haniga ku darsan kartaa liina ku darsan kartaa waxyaalo marka muhiimad waxa waaye in hooyo aan caafimaadkeena aan ku dadaalno insha Allah araal hada am tarayn waxa wallahi masha Allah been baraka iyo kan dilisku cuno is very delicious reerahani ani malabka reer malab but you guys kan qofkii malabka jecel oo kale uu fiiri karaa marka insha Allah maanta videogan intaas ku saabsan yahay daryeelkii hooyada meel kasta joogtin aad ayaan kaga mahad celinaya marka dippingka waxa rabta ka dhigo adiga hadda dippingka waxa ka dhigi kartaa malabka saan ii sheega kana ka dhigi kartaa caafimaad oo ay malabka iyo hadda kan qadi diet ay ku jirto you can try something different adiga aad jeceshay also I have a cheese can only all look good let me show you guys well fiqa it's my favorite also let me show you guys a little bit هذا organic so sida hor ma fiicna ilmaha la siiya kan oo kale waa healthy marka let me show you sidoo ekayna to sawa insha Allah marka lan isu gelinaya because kan kiisas da u fiiqada oo saas u fiiq ma u jeedin uu gooya because waxa waaye ma ku darin waxyaalaha kiimikada ama oo kala jijiiday ma ku darin ay waxaan dhahaa gluten amal ma lahan kan so
وفيري يومي أصلاً healthy snack أنا عوني كرتا مركا شقادة أما ميل إسك جوكت light stuff كانوا كلا إسك عوني كرتا هدي قف دايد رادين أيال كلتها إيه helps a lot because marka intaan aan cuntid been barkii wixii iyo dhibinka aan cuntid gaajada way ka damuusa also cheese ka ala benefit ka dhan ah helaysid waxyaalo badan oo caloosha kale u fiican hadda ma sha Allah caafimaad ahaan shirkadeena u fiican marka cheese kan snack ka dhigo waxaan dhan waa wada snack is not a lunch kan kuwaan iska jarjara sometimes iska cun as a snack marka maanta intaas video ku saabsan yahay thank you so much biyaheygana ma sha Allah soo baraaway and let me know what you guys think fruit kaygana soo baraaway just give it a week waa barno sabramis hadii aad week cuntid isku diidid every day inaa wax yar ka cunto xabada maalin cun hadaa rabto yaran habto andan wixii aad jecesha aad ku daaro hadda waxa arka asagoo normal ku noqdo oo aad raadinaysid ma sha Allah marka khayr badan aan irajinaya see you guys in next video meel kasta aad joogtiin insha Allah guys share the video subscribe community gana Soomaalida ma sha Allah is caawino assalamu alaykum